jasiirad ama island waa qayb ka mid ah dhulka oo gebi ahaanba ay ku hareersan yihiin biyo. marka laga hadlayo jasiirad waxa ugu horeeya niyadaada ku soo dhacayo ayaa ah meel aad u qurux badan, xeeb jawi degan leh, biyo saafi oo leh nicaw aad u wanaagsan, heerkul fiican oo diiran leh. hase ahaatee wax walba oo qurux badan halisteeda ayay leeyihiin. waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB. haddii aad nagu cusub tahay si aad wax badan noogu faa'iido fadlan nagu soo bir YouTube-keena Xikmad soo subscribe saar. daawadaha sharafta leh waxaan hore uga hadlay 10 jasiiradood ugu halista badan adduunka iyo jasiirad aan waqtiba ka jirin, jasiiradda Samaroy. haddaba maanta waxaan ka hadlayaa 11 jasiiradood oo la dayacay, dadkii ku noolaa isaga tageen, aan dib dambe loo degin. sababta loo dayacay loogana tagay jasiiradahan waxaad ku ogaan doontaa muuqaalka dhammaadkiisa. nala sii joog ilaa dhammaadka, haddana ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. jasiiradda koowaad, Houtuan Village, Shanshan Island, China. jasiiraddan mar ayay hooy u ahayd in ka badan 2,000 oo qof oo kalluumaystayaal ah iyo qoysaskooda. tuuladan fog Houtuan waxaa laga tagay horaantii 1990-meeyadii, iyadoo dadkii degnaa jasiiraddan ay ka guureen iyagoo raadinaya waxbarasho iyo kheyraad ka wanaagsan kan ay haystaan. maanta waa meel cidlo ah oo cabsi badan, balse waxaa booqda dalxiisayaal badan sanadkii si ay u eegaan guryaha cariishta ah ee cidlada ay ka guureen dadkii degnaa. jasiiradda labaad, jasiiradda Deception, Antarctica. jasiiraddan Deception sababta dadkeeda isaga tageen waxay ahayd mid fudud oo ah foolkaano. ma qarxin hal mar bas, wuxuu qarxay 2 jeer, wuxuuna burburiyey ku dhowaad wax kasta oo agteeda ahaa. mar waxay ahayd rugta nibiriga ee hooy u ah dhowr saldhig oo cilmi baaris cilmiyeed ah. 2 qarax oo ka dhacay jasiiraddan dabayaaqadii 1960-meeyadii ayaa wax walba u bedelay dambas. maanta jasiiraddan waa mid aan la degi karin, laakiin waxaa booqda sanadkii dalxiisayaal badan dunida daafeeda ka kala yimaada. jasiiradda saddexaad, King Island, Alaska, USA. qiyaastii 40 mayl dhanka galbeed ee dhul weynaha Alaska waxaa ku taal King Island iyo tuulada ruuxaanta leh Yugivok. beeshii hore ee Inupiaq bulshadaas noloshooda waxay ku dhisneed badda, iyagoo ugaarsanayay carsaanyo iyo shaabad xilliyada jiilaalka, iyagoo ka kalluumaysanaya bilaha xagaaga. inkastoo hal mar aagu ay degnaayeen ku dhowaad 200 oo qofood, waxaa si murugo leh loogu sheegay inay ka tagaan jasiiradda 1959-kii markii xafiiska arrimaha Hindiya xiray dugsiga keliya ee tuulada ku yaalay. guryahaasi xumaanayay iyo dhismayaal laga dhisay saqafyo ayaa intaa ku haray jasiiraddan. jasiiradda afaraad, jasiiradda Spanilonga, Giriiga. jasiiradda Spanilonga waxay ciyaartay doorar badan qarniyadii oo dhan. dabayaaqadii qarnigii 16aad dadka reer Finish waxay jasiiraddan ka dhisteen dhufaysyo si ay ugu difaacdaan weeraradii dowladdii weyneed Cusmaaniyiinta, laakiin arrimaha waxay noqdeen kuwa mugdi sii galay qarnigii 20aad. inta u dhaxaysay 1903 iyo 1957 waxay ahayd gumaysigii ugu dambeeyey ee Yurub. dhaliilaha ku xeeran jasiiraddan ayaa sii socday muddo 10 sano ah. buugga cusub ee 2005 The Island Victoria Haslop ayaa la wadaagay sheekada Spanilonga iyo dadkii degan, isaga oo ka caawinaya bini'aadanimada iyo waayo aragnimada. jasiiradda shanaad, Hashima Gongajima, Japan. jasiiraddan waxaa loo yaqaanaa jasiiradda dagaalka qaabkeeda awgeed. Hashima waa jasiirad la dayacay oo 10 meel u jirta Nagasaki. jasiiraddan waxay ku dhowdahay macdanta dhuxusha ee badda hoosteeda. waxay noqotay calaamad muujinaysa warshadaynta Japan dabayaaqadii qarnigii 19aad kadib markii ay iibsatay shirkadda Mitsubishi, taas oo ka caawisay korarka dadka in ka badan 5,000 oo degan 1959-kii. si kastaba ha ahaatee 1974 batroolka ayaa bedelay dhuxusha, dadkuna waxay bilaabeen inay ka guuraan, taasoo ka dhigtay jasiiraddan inay qurunto. jasiiradda lixaad, Rose Island, Hindiya. si rasmi ah jasiiraddan Natashi Sovash Gender. Rose Island waxay ahayd dugsiimo Ingiriis ah oo hooy u ah gumaysi ciqaabeed ilaa qarni. dhulgariir weyn oo dhacay 1941 iyo duulaankii Jabaan ayaa waxyeeleeyay inta badan kaabayaasha dhaqaalaha. ciidamada badda Hindiya ayaa ugu dambeyntii dib u soo ceshaday jasiiraddan Rose 1979-kii, waxayna dhisteen saldhig yar oo militari, laakiin dalxiisayaashu weli way booqan karaan haraaga gumaystihii hore ee ciqaabka iyo dhowr dukaamo xasuusta ah. jasiiradda toddobaad, jasiiradda Bougainville, Talyaaniga. dhammaan jasiiradaha oo aynu baarnay, jasiiradda Bougainville waxay leedahay taariikhda ugu mudow, taasoo ah sababta loogu tixgeliyo inay ka mid tahay meelaha ugu dhibka badan adduunka, iyadoo ku dhex jirta laag qurux badan u dhexeeya Venice iyo Lido. waxay gobaad u noqotay 421dii dadkii ka soo qaxay duulaankii burburiyey dhulweynaha Talyaaniga. qarniyo badan bulshadu waxay ku nooleed nabad ilaa ay si dabiici ah u yaraatay ka hor intay noqon gumaysi karantiil. intii lagu guda jiray cudurkii bubonic, musaafiriinta jasiiradda Bougainville waxay noqotay xukun dil ah
kumanaan kun qof ayaa ku dhintay halkaas xaalado aad u xun. Sanado kadib dabayaaqadii 1800-yadii Bavaria waxay dejisay magangelyo si liidata loo dhisay oo lagu talagalay dadkii dhimirka ka bukaa, taas oo sii kordhisay sumcadeedii xun. Maanta jasiiradan oo dhan waa laga tagay dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha waa ka mamnuuc inay booqdaan iyo sida la sheegay kalluumaystayaasha waxay u janjeeraan inay ka fogaadaan meeshan oo la habaaray. Jasiiradda 8aad Tortugas Strait Florida waxaa magacaabay saamiyaha Isbaanishka John Ponce de Leon 1513. Tortugas Strait ee ku yaal furayaasha hoose ee Florida waxay mar ahayd marin mashquul badan maraakiibta iyo albaabka dadka ee gacanta Mexico. Sanadkii 1847 dhismaha wuxuu ku bilaabmay 700,000 oo feet square oo Fort Jefferson, kaas oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo kanaalka maraakiibta, laakiin weligiisa si buuxda uma shaqayn qalcad ahaan. Taa beddelkeeda qaab dhismeedka wuxuu xidhay dadkii ka soo goostay dagaalkii sokeeye 4 shirqool lagu dilay Abraham Lincoln. Kadib ciidanka badda waxay ka tageen saldhigga 1874. Madaxweynaha Roosevelt wuxuu qalcadda u bedelay taalo qaran iyo dhammaan jasiiradda oo dhan sida beerta qaranka. Lagu gali karo doon ama diyaarad badeed keliya maanta waa meel laga quusto oo lagu dawaashto iyo kaamamka caanka ah dunida. Jasiiradda 9aad Klein Carriacou Island keliya 6 mayl koonfur bari ee Carriacou waa jasiirad yar oo aan degnayn. jasiiradan Klein Carriacou jaleecada hore ma ahan sida ay u muuqato. In ka badan nus mayl oo laba jabaaran oo dhul ah waxaa ku yaal leyd ama nalal cidla ah, doonyo burburay, dhismayaal dhagxaan ah oo dumay, iyo goobo dadka lagu aaso oo ay ku yaalaan xawaalo faraku-tiris ah. Intii lagu guda jiray ku ganacsiga adoonsiga jasiiradan waxaa isticmaali jiray shirkadda Dutch West India Company si ay ugu karantiilaan dadkii xanuunsanaa la adoonsan jiray ee laga soo qaadi jiray Afrika ee la geyn jiray Kariibiyanka. Qaar badan jasiiradan waxay u noqotay meel ay ku nastaan. Jasiiradda 10aad Sawakin Island Suudaan waxay ku taalaa jasiiradan badda cas. Sawakin waa jasiirad la dayacay oo mar deked ahaan jirtay. Dekedda jasiiradda Sawakin waxaa horumariyay Ramsiiskii 3aad qarnigii 10aad si ay u noqoto goob lagu ganacsado oo gobolka u keenta hanti iyo barwaaqo. Qarnigii 19aad Sawakin waxa ay xarun u noqotay ganacsiga adoontii Afrika bari. Ugu dambeyntii way sii yaraanaysay markii la baabi'iyay ka ganacsiga adoonta. jasiiradda ugu dambeysa jasiiradda 11aad Mamila Island Montenegro. jasiiradda Mamila waxay tusaale u tahay meel leh taariikh aad u falxun oo muddo 10 sano leh la dayacay jasiiradan, taasoo hadda fursad labaad u helaysa nolosha. Sanadkii 1853 guud ahaan Austro-Hungary Lazarus ayaa Mamila wuxuu qalcad ka dhisay jasiiradda ka baxsan Montenegro si uu u difaaco gacanka Kotar. Si kastaba ha ahaatee jasiiradda ayaa caan ka noqotay dagaalkii labaad adduunka markii ay isku bedeshay xire ay ku aruursanayeen ciidanka Benito Mussolini. Kadib xiritaanka xirada, dhismayaasha jasiiradda oo ay ku jiraan unugyada xabsiga ayaa looga tagay jasiiradda inay burburaan ilaa ay shirkadda maalgashi Swiss Masar ay xaaqday si ay ugu bedesho qalcadda Mamila Island Hotel oo ah hanti qaali ah oo la furay bishii Abriil. Sababaha ugu weyn jasiiradahan muhiimka ah qaar ka mid ahna taariikh hore lahaa loo dayacay looguna tagay waxay ahayd midda koowaad dadkii ku noolaa jasiiradda oo waayay adeeg bulsho sida waxbarasho, caafimaad, qaarna iyagoo haysteen laga jaray oo laga joojiyey. Midda labaad halka qaar lagu dayacay arrimo bulsho sida jasiiradda oo laga barakiciyey. Midda ugu dambeysa midda saddexaad halka qaarka kale ay noqdeen kuwa lagu dayacay dabeecadaha xad-dhaafka jasiiradaha sida inay dhacdo oo qaraxdo foolkaano weyn. Daawadaha sharafta leh haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si uu dad badan u gaaro. adigoo mahadsan la wadaag asxaabtaada oo share u dheh muuqaalkan. intaan muuqaalkan la xinaha ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.